maxamuud jaamac warfaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland ayaa u mahad celiyay kooxo dhaqaatiir ah oo ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland oo guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka dhawaan ka fulayay barnaamijka daaweynta iyo nafaqeynta xoolaha oo markaasi ay ka faa'iideysteen guud ahaan xoolaha ku nool gobolada iyo degmooyinka dalka. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland waxa uu u mahadnaqay isla markaasina uu bogaadiyay qaabkii wanaagsaneyd ee xoolo dhaqatada dalku ay uga faa'iideysteen mashruucaasi. waxaan doonayaa maanta inaan halkan uga mahadnaqo dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii xanaanada xoolaha ee dalka oo dhan ka qabtay kaambeynkii nafaqeynta iyo talaalka xoolaha minsool ilaa salal inta u dhaxaysa ay ka talaalayeen xoolihii way caafimaadinayeen. markaa hawshii markay ay soo gabagabeeyeen waxay ila noqotay aniga inaan u mahadnaqo hawshaa baaxadda leh ee ay u soo qabteen ummadda reer Soomaaliland iyo xoolahooda. waxaynu ognahay xooluhu inay yihiin lafdhabarka dhaqaalaha dalka. haddii aan xoolaha la daryeelin oo aan la daweyn oo aan calaf iyo biyo iyo intaba lagula tacaalin dee way inaga maranayaan. marka wasaaradda xoolaha waxay u taagan tahay inay mar walba xoolaheena haddii abaari timaado iyo haddii xanuun yimaadaba in ay qayb lixaadla ka qaadato wacyigelinta dadka xoolaha dhaqda iyo la tacaalista xanaaneynta xoolahaba. markaa mahadnaq aan la soo koobi karin baan mar labaad iyo mar saddexaad doonay in la jeediyo dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii. waxaan kaloo u mahadnaqayaa xoolo dhaqatadii iyaguna sida wanaagsan xilkaska ah isaga xil saaray inay xoolaha keenaan oo ay la magaranaysa hawsha qayb ka qaataan. iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.